Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkani waxaan si toos u sheegaynaa arrinka ku aadan Suleymaan Al-Qaanuuni. Isbuucii la soo dhaafay ayaa aad loo hadalhayay magaca Suleymaan Al-Qaanuuni. Magaalada Riyaad ee Sacuudiya waxaa ku yaali laami magaciisu yahay Shaaric Suleymaan Al-Qaanuuni. Laamiga Suleymaan waxaan ognahay dabcan in khilaaf xun ka dhexeeyo labada dal, Sacuudiya iyo Turkiya. Waxaan muuqaalkani ku arki doonaa insha Allah in ay dad caayayaan Suleymaan Al-Qaanuuni. nin lagu magacaabo Abu Ziyaad wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray hashtag leh almujrim Suleymaan Al-Qaanuuni. Mujrimkii Suleymaan Al-Qaanuuni wuxuu raacsiiyey ummaddii islaamku waxay ahayd waqtigii Cusmaaniyiinta. Dhibaato aad u weyn ayaa haystay maxaa yeelay waqtigii hore ee Suleymaan wuxuu ku faafay dil iyo boob iyo caabudidda xabaalaha. Intaan waxaa u dheer ayuu leeyahay qeybo la xaday oo ah Kacbada iyo dhagax madow. waana ninka oo sidaas dhahaya Suleymaan Al-Qaanuuni waa nin ku dhowaad 600 sano ka hor geeriyooday. ninkan kalaasiin waxaa lagu magacaabaa Maxamed Al-Mukhtaar. wuxuu bartiisa ku soo qoray haddii aan hadalkani soo gaabino ama ulujeedka aan la soo baxno, waxay ka saareen calaamad ay ku qoran yihiin magaca Suldaan Suleymaan. miyay ku dhiiran yihiin in ay ka saaraan mixraabka Suleymaani ee waa masjidka nebiga? hadalkani haddii aan ulujeedka kala soo baxno wuxuu ula jeedaa Maxamed Al-Mukhtaar, laami ayaad magaca Suleymaan ka qaadeen, haddaba ma awoodaan tiirarkan taariikhiga ah ee masjidka nebiga ee la dhisay xilligii Suleymaan Al-Qaanuuni in ay rawdada nebiga suuliyaan, maadaama uu yahay arrinkan sidoo kale raadkii uu ka tegay Suleymaan Al-Qaanuuni. Bashiir Axmed wuxuu leeyahay reer Yurub waxay ugu yeeraan Suleymaan Al-Saluul. waxay isku dayeen in magaciisa laga saaro waddo, laakiin wuxuu ku qoran yahay qalbigayga ayuu leeyahay. dabcan dad walba oo muslima ayuu qalbiga ugu qoran yahay Suleymaan Al-Qaanuuni. waxaa la sheegayaa in muddadii Suleymaan mucjisada ahayd xilligii Cusmaaniyiinta ay ahayd tii ugu dheerayd ee ay qaadatay muddo 46 sano. dhacdo taariikhi ah oo aan la masiix karin, dhacdo taariikhi ah oo kutubta ku qoran, nus bilyan muslim ay akhriyayaan in maanta la isku dayay in la daboolo. laakiin waxaa alxamdulillaah cid waliba oo muslima iyo cid waliba oo akhriso in ay taqaano wixii uu ahaa Suleymaan Al-Qaanuuni. dabcan haddii la isku dayo in waddo xun laga qaado magaca Suleymaan, lagama bixin karo qalbiyada muslimiinta. Suldaan Suleymaan waxyar aan dib u milicsano. isbuucii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay taalooyin loo dhisay siyaasiyiin in la dumiyey. dabcan dibadbaxyada aan la wada socno ee Mareykanka waxay sababeen in daafaha kala duwan ee caalamka, gaar ahaan Yurub iyo Mareykan, in dadku ay burburiyaan taalooyin loo dhisay dad siyaasiyiin iyo dad taariikh ahaan caanka ah waddamadaasi, laakiin loo eedeynayo in ay cunsuriyadda asli u yihiin ama inay lug weyn ku leeyihiin, sida Christopher Columbus oo ah dhulmareen Talyaani ah, ahna ninkii soo helay labada Ameerikada Waqooyi. gaar ahaan waxaa la burburiyey taaladii Christopher Columbus ayagoo leh dabcan dadkan banaanbaxayaasha ah waxay leeyihiin waa udub ka mid ah udubyada cunsuriyadda iyo faquuqa. Yeah, we're having some breaking news out here on the south lawn of the state capitol. About 150 demonstrators just gathered, and they have just torn down the statue of Christopher Columbus. The statue has been here since 1931. Columbus, of course, has been very much criticized in recent years as people look at his history again as a conqueror and not as an explorer. So these protesters came here to tear down the Christopher Columbus statue, maybe 12 feet tall or so. And just literally 15 seconds before you came to us, the statue did come down. This group of protesters had put two ropes around Columbus's neck. They then backed into the street here outside the Capitol
they tore the statue down. The statue fell onto the sidewalk to a big cheer